Ra'iisul Wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan ayaa sheegay in ficilada dowladda India ee ka dhanka ah gobolka lagu muransan yahay ee Kashmir iyo sharciga cusub ee muwaadinka uu dhalin doono in malaayiin muslimiin ah ay qaxoonti noqdaan. Isaga oo ka hadlayay shirka caalamiga ah ee arrimaha qaxoontiga oo ka dhacayay magaalada caasimadda ah ee Geneva, ayaa wuxuu sheegay in dhibaatada Hindiya ay keeni karto barakac cusub. Mr. Khan ayaa intaa ku daray in sidoo kale ay dhici karto dagaal dhex mara dalalka Pakistan iyo India oo haysta labada dalba hubka nuclear-ka. Toddobaadkii la soo dhaafay ayuunbay ahayd markuu ra'iisul wasaaraha dalka Hindiya Narendra Modi uu qalinka ku duugay sharci ka dhan ah qaxoontiga muslimiinta ee ka soo jeeda wadamada deriska. Mr. Modi ayaa sheegay in sharci muwaadinimo ayna heli doonin dadka ka soo jeeda Bangladesh, Pakistan iyo Afghanistan ee muslimiinta ah. Ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan ayaa caalamka ugu baaqay in ay ka hortagaan xasuuq la mid ah kan qowmiyadda Rohingya ay u geysteen dowladda Myanmar.